Chichen Itza waxa ay ku taalaa magaalada Mayan ee waddanka Mexico. Dhismahan waxaa la sameeyay qarnigii 9aad waxaana dhisay qabiilka la yiraahdo Mayan ee dega isla magaaladan. Dhismahan qadiimiga ah waxa uu ka kooban yahay 365 jaranjaro oo la mid ah maalmaha sanadka. Dhismahan waa calaamadaha lagu garto waddanka Mexico, waana meel si weyn dalxiisayaashu u jecel yihiin inay soo booqdaan sanad kasta. Petra waa magaalo qadiimi ah oo ku taala koonfurta boqortooyada Jordan. Waxaa sidoo kale loogu yeeraa Raqmu. Magaaladan waxay dhacdaa buurta la yiraahdo Al-Madbah oo ka mid ah buuraha dhaca Jordan, kuwa oo sameeya dooxada la yiraahdo dooxada Carabta oo ka timaada badda dhimatay ama Baxrul Mayit, waxayna dhirirsan tahay ilaa gacanka la yiraahdo Aqaba. Magaalada Petra waxaa la degay 9,000 oo sano Nabi Ciise calayhi salaam ka hor, waxayna caan ku tahay dhismaheeda ka qoran dhagaxyada aadka u qurxoon iyo kanaalada biyaha ee mara magaaladan. waxaana sidoo kale loogu magac daray magaaladii ubaxyada iyadoo loo eegayo dhagaxyada ay ka dhisan tahay oo ah kuwo aad u midabeysan. magaalada Machu Picchu waxay ku taalaa koonfurta waddanka Peru ee qaaradda Latin America. magaaladan waxa ay ku dul taalaa buur dhererkeedu yahay 2430 mitir. waxaa dhisay qabiilka lagu magacaabi jiray Inca qarnigii 15aad ee miilaadiyada. hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay u qaabilsan raadadka taariikhaha ayaa sanadku markuu ahaa 1983 ku daray magaaladan 7 mucjiso ee cusub ee caalamka. taalada Redeemer ee ku taala Rio de Janeiro, Brazil. dadka Kiristaanka ah ayaa aaminsan inuu yahay suurada Nabi Ciise calayhi salaam, laakiin ujeedada soo qaadashadeena waa ay ka duwan tahay mida. waxaan rumaysanahay in Nabi Ciise calayhi salaam suuradiisa aysan ahayn oo ay tahay kaliya taalo ama sanam ay gacantooda ku sameeyeen, laakiin waxay ka mid tahay meelaha la yaabka leh muuqaalkooda iyo xilliga la dhisay oo ah xilli hore. 1931 ayaa la dhammaystiray dhismaha taaladan ku taala Rio de Janeiro. waxay kor u taagan tahay 30 mitir, waxaana laga sameeyay dhoobo aad u adag, waxaana ka qayb qaatay dhisidda taaladan injineero fara badan. dhismaha Colosseum waxa ay ku taalaa dhexbartamaha magaalada Rome ee Talyaaniga. waxaa la dhisay qarnigii 1aad kadib amar uu bixiyay boqorkii Roomanka ee xilligaas oo la oran jiray Vespasian. dhirirka dhismahan ayaa gaaraya 189 ilaa 156 mitir. waxa uu socday dhisidiisa 8 sano, inkastoo dhinac uu ka soo gaaray burbur uu sababay dhulgariir, haddana waa calaamadda lagu garto magaalada Rome ama guud ahaan Talyaaniga. dhismahan ayaa lagu qaban jiray cayaaro, waxaana halkii mar daawan karay 50,000 ilaa 85,000 oo daawade. taa oo ku tusinaysa weyninka dhismahan dalxiisayaasha adduunyadu ay aadka u jecel yihiin inay tagaan xilliyada fasaxa. Taj Mahal waxa ay ku taalaa magaalada Agra ee dalweynaha India. waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu cajaa'ibka badan caalamka oo dhan. waxaa dhisay boqor Shah Jahan si uu ugu sharfo xaaskiisa oo la oran jiray Mumtaz Mahal, taa oo geeriyootay 1931 markii ay dhashay cunugoodii 14aad. waxa ay socotay dhisidda dhismahan 22 sano oo xiriir ah, waxaana ka qayb qaatay 20,000 oo shaqaale si loo dhiso daartan cajiibka ah. waxa ay ka samaysan tahay
dhagax cad oo aad u adag, waxaana ku dhex yaala beer aad u weyn iyo barkad ama buul indhaha soo jiidanaya. Dhismahan kama dhammaado xiisaha dalxiisayaasha dunida inay arkaan, waana nasiib darro aad u weyn haddii aadan arkin Taj Mahal mar haddii aad booqato dalka India. Derbiga weyn ee China waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu waaweyn ee caalamka. Derbiga weyn ee China waxaa loo maleynayaa in uu gaarayo 5,500 oo mayl oo u dhiganta 8,850 kiiloomitir oo dherer ah. Inkastoo weli la isku raacin dhererka saxda ah, laakiin waxaa kuu soo baxaya weyninka iyo la yaabka uu leeyahay. Waxaa la bilaabay dhisidda derbigan qarnigii 7, waxa uuna socday 200 oo sano dhamaystirka derbigan. Sababaha loo dhisay derbigan waxaa ugu waaweynaa in uu ahaa difaac, maadaama dadkii halkaas ku noolaa dagaallo ba'an kala kulmi jireen ciidankii Mongoolka. Inkastoo loogu yeero ereyga derbi, haddana waa waddo 2 dhinac derbi ku leh, kuna dul taalla buuro waaweyn. Sanad kasta waxaa booqda dalxiisayaal malaayiin gaaraya si ay u arkaan mucjisadan.